kadib markii uu sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump in gacanta nabadda ee dowladdiisu ay tahay mid fidsan. diblomaasiga reer Iiraan ee lagu magacaabo Sabaax Sankan ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay shaki weyn ka qabto deganaanta uu muujiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii ay ciidamada Iiraan duqeeyeen saldhigga ciidamada cirka Mareykanku uu ku leeyahay dalka Ciraaq ee lagu magacaabo Cayn al-Asad. mar la weydiiyey in Iiraan ay ku faraxsan tahay hadalka Trump ee ah in uu nabad doonayo ayuu yiri Iiraan lafteedu waxay sheegtay in aanay rabin in xaaladdu ka darto, ma rabto inay dagaal la gasho dowladda Mareykanka, balse wixii ay samaysay waxay ahaayeen wax ay ku qasbaneed kadib dilkii Genaraal Qaasim Suleymani. Iiraan waxay rabtaa in ciidamada Mareykanku ay isaga baxaan dalka Ciraaq. وهذا مطلب أساسي طالبت به إيران. sidoo kale diblomaasigan ayaa sheegay in Iiraan ay dadaal dheer ku bixin doonto sidii ciidamada Mareykanku ay isaga bixi lahaayeen ciidda Ciraaq, maadaama ay Iiraan aaminsan tahay in ay khatar ku yihiin amniga qaranka Iiraan. waxa uu sheegay in xiisadihii dhex yiilay Mareykanka iyo Iiraan ay isbedeleen oo aanay ahaan doonin ka hor dilkii Genaraal Qaasim Suleymani siday ahaayeen. diblomaasigan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in sababta uu Mareykanku u dilay Genaraal Qaasim Suleymani ay ahayd in Suleymani uu xiriiro wacan la lahaa wadamada dariska la ah Iiraan, balse Mareykanka oo diidanaa xiriirkaasi uu dilka u geystay.